kulan wacan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah Uhuru Kenyatta oo shuruud adag ku xiray inay ciidamadiisa Kenya ka baxaan Soomaaliya dil argagax leh oo salka ku haya arrin jacayl oo xalay ka dhacay Muqdisho iyo dagaal xoog leh oo xalay dhacay waxaa kaloo daawan doontaan weerar 3 qof lagu dilay oo ka dhacay gobolka Mudug dowladda federaalka oo ka baxday heshiisyo qarsoodi ah oo ay kula jirtay 5 shirkadood xogta qorshe 3 qayb lagu kala qaybinayo ciidamada Robo wal isku raacay ninka al-shabaab u qaabilsan Muqdisho arrin la yaab leh sameeyay xilli kaba ku tukaday uu sheegay in wiilkiisu yahay dagaalyahan waxaa kaloo daawan doontaan Maxamed bin Salman walaashiis oo xabsi lagu xukumay qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal markale kulan wacan haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto kuna dhufo gambalelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha kuwaad markaynu wararkeena baahino aynu ku bilaabnay Uhuru Kenyatta ayaa shuruud adag wax uu ku xiray in ciidamadiisa ay ka baxaan Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hor imaaday qorshaha la doonayo in ciidamada AMISOM loogu saaro dalka Soomaaliya Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya marnaba aysan ka bixi doonin dalka intay al-shabaab jirto isagoo sheegay in al-shabaab halis weyn ku tahay guud ahaan dalalka Afrika waxa uu tilmaamay in ciidamada Kenya baaqi ku sii ahaan doonaan gudaha Soomaaliya intii ay iska dhiibayaan al-shabaab sida hadalka uu dhigay Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ka mid yihiin howlgallada AMISOM ayna ka shaqeynayaan amarka iyo qorshaha ay u dejisan howlgalka AMISOM oo ujeedkiisu yahay sidii al-shabaab loo ciribtiri lahaa dowladda Kenya ayaa dhawaan qaramada midoobay u gudbisay qaraar ka dhan al-shabaab kaasoo ah qodobka 267 oo sheegaya in meelaha al-shabaab ay ku sugan yihiin laga fuliyo duqeymo aan kala sooc lahayn iyo inaan wax gargaar bini'aadanimo la gaarsiin karin kooxda meelaha ay ku sugan yihiin qaramada midoobay ayaa qaraarkaas ka hortimid waxaana ay sheegtay inaan la joogin waqtiga al-shabaab la geliyo qodobka 267 waxaana arrintaas si weyn ugu hor imaaday hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay dowladda Soomaaliya ayaa horay dowladda Kenya ugu eedeysay inay qayb ka tahay dhaqaalaha ay helaan al-shabaab waxayna codsatay intii la ansixin lahaa qodobka 267 lagu amro Kenya inay joojiso dhoofinta dhuxusha oo la aaminsan yahay in dhaqaale badan ay ka helaan al-shabaab hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Kenya ayaa ku soo aadaya xilli meel xasaasi ah ay marayso dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya taasoo dib loo dhigay muddo 2 bilood ah magaalada Muqdisho haddii aynu ku soo laabanana dil argagax leh oo salka ku haya arrin jacayl ayaa xalay ka dhacay Muqdisho waxaa xalay xaafad ka tirsan degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ka dhacay dil argagax leh oo la sheegay in salku ku hayay jacayl u dhaxeeyay wiil iyo gabar dhalinyaro ah sida wararka aynu ka helnay wiilkii gabadha xiriirka ka dhaxeeyo oo meel wada fadhiya ayaa waxa si lama filaan ah ugu yimid wiil la dhashay gabadha oo ka cariisnaa xiriirka lamaanahan ka dhaxeeyay wiilkii goobta yimid ayaa durba canaan iyo garaacis ku bilaabay walaashiis waxaana arrintaas la sheegay inuu u adkeysan waayay wiilka xiriirka uu kala dhaxeeyo gabadha oo damcay inuu gabadha ka celiyo walaalkeed goobjoogayaal ayaa ku waramay in wiilka gabadha la dhashay oo wiilka kale markii uu damcay inuu ka celiyo caloosha uu ka geliyo maqas oo uu watay taasoo sababtay in wiilka dhiigga uu ku horo si degdegan uu geeriyoodo ciidamo boolis ayaa yimid goobta uu ka dhacay dilka argagaxa leh waxaana si degdeg ah goobta ugu baxsaday ninkii dilka u geystay wiilka xiriirka kala dhaxeeya walaashiis waxaana baadigoob ay ugu jiraan gacan ku dhiglaha ciidamada booliska dhacdadan ayaa noqotay mid argagax badan ku abuurtay dadka degan degmada Xamarweyne waxaana dhacdadan xalay ay dhalisay hadalhayn badan iyadoona dadka siyaabo kala duwan arrintan ay uga hadleen iyadoo ay taasi jirtana inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay miyiga galbeed ee gobolka Mudug halkuu ku dhaawacmay wadihii gaariga kaasoo la rumaysan yahay inuu ahaa mid ku saleysan aano qabiil weerarkan oo ahaa mid jidgal ah ayaa waxaa lagu qaaday gaari marayay galbeedka gobolka Mudug kuna sii jeeday degmada Goldogob waxaana dadka ku dhintay mid ka mid ah ay ahayd haweeney dadka deegaanka weerar ka dhacay warbaahinta waxay u sheegeen in maleeshiyaadka ka dambeeyay weerarkaas ay goobta ka baxsadeen waxaana darawalkii gaariga ee ku dhaawacmay weerarkaas la geeyay isbitaalka magaalada Gaalkacyo maamulka gobolka Mudug ee dhanka maamulka Galmudug wali kama aanay hadlin weerarkaas rasaasta ee lagu qaaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay galbeedka gobolka Mudug xalayna dagaal qaraar waxa uu ka dhacay degmada Markaa dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda isla markaana ahaa mid aad u xoogan ayaa lagu soo waramayaa in xalay uu ka dhacay magaalada Markaa ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose al-shabaab ayaa weerar soo qaaday sida dad ay u sheegeen kuwaasoo ku sugan magaalada Markaa warbaahinta dagaalka ayaa soo gaaray xalay saqdii dhexe isagoo bilowday fiidkii hore waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inuu jiro khasaare kala duwan oo labada dhinac soo kala gaaray balse aan la xaqiijin karin maadaama weerarku dhacay xilli habeen ah
magaalada marka waayadii u dambeeyay waxaa ka socday diyaar garow ee ciidamada magaalada ku sugan ay ku sameynayaan hareeraha magaalada kaasoo ay doonayeen in al-shabaab ay ku weeraraan maadaama al-shabaab deegaano badan oo hareeraha magaalada marka ay gacanta ku hayaan geesta kale qorshuhu waxa uu ahaa in magaalada marka uu booqdo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kaasoo la filayay in toddobaadkan uu halkaas tagi karo walow xoghaynta ra-iisul wasaaraha ay qaarkood sheegeen in macquul aysan ahayn in ra-iisul wasaaruhu uu tago magaalada marka oo amnigeeda aan la isku halleyn karin xalayna weerar aad u qaraar uu ka dhacay xulashada wararka ayaa daawanaysaan dowladda federaalka waxay ka baxday heshiisyo qarsoodi ah oo ay kula jirtay 5 shirkadood wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka baxday heshiisyo ay kula jirtay 5 shirkad oo kala duwan heshiisyadan oo ahaa kuwa aan markii horeba laga warhayn ayaa shirkadaha lagula jiray waxa ay qaabilsaneed hubinta badqabka gaadiidka MOT ama Kalawito shirkadaha wasaaradda gaadiidka heshiiska kula jiray ilaalay qandaraaska waxay kala yihiin General Motors, Balqiisa General Service, Sawaasiya General Service, Gaagaale General Service iyo Barwaaqo General Service heshiisyada ahaa kuwa ay shacabka Muqdisho dhibaato badan ku qabeen maadaama loogu qaadan jiray lacag kala duwan aan wax shaqo loogu qaban qoraal ka soo baxay wasiirka wasaaraddaas Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayuu ku shaaciyay in gebi ahaanba la joojiyay tijaabadii badqabka gaadiidka mana jiro sabab faahfaahsan oo laga bixiyay arrintaas waxaan gebi ahaanba la joojiyay tijaabada badqabka gaadiidka MOT ama Kalawito waxaana la farayaa hay'adaha dowladda in ay arrintan qusayso inay dhaqangeliyaan go'aankan oo uu ku saxiixnaa wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar xogta qorshaha 3 qayb loogu kala qaybinayo ciidamada Row ayaa markan la isku raacay waase la ogaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa wada qorshe la doonayo in lagu qarameeyo ciidamada Muqtaar Roob Cali Abu Mansuur oo ku sugan qaybo kamid ah gobolka Boqol sida ay ogaatay xulashada wararka ciidamada daacad ah Roob ayaa ogolaaday wada hadal dheer kadib in la qarameeyo waxaana sidoo kale la isla qaatay in loo kala saaro ilaa iyo 3 qaybood qayb booliska gaarka nabad sugidda iyo xoogga dalka sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa soo jeediyay in ciidamadan loo kala saaro ilaa iyo 3 qaybood oo kala boolis nabad sugid iyo SNA ama xoogga dalka lama oga in arrintan ay aqbali doonaan saraakiisha ciidanka Muqtaar Roob Cali Abu Mansuur oo hore shuruud ugu dhigay in hoggaanka ciidanka dowladda ay qayb ka noqdaan sidoo kalena la siiyo gaadiid dagaal hub iyo saanad military intababa wada hadallada iyo dadaalada lagu doonayo in lagu qarameeyo ciidamadan ayaa sii xoogeystay kadib markii booqashada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya gobolka Boqol inkastoo hadda dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa horey ugu guuleystay inuu qarameeyo ciidamada maamulkii gobolada dhexe ee Al-Sunna wal Jamaaca iyo sidoo kale maleeshiyaad beeleed ku sugan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo wali uu xiran yahay wadaadka Muqtaar Roob oo bishii December ee sanadkii hore dowladda ay ka soo xirtay Koonfur Galbeed wararka shabaab intaanan ka bixin ninka al-shabaab u qaabilsan Muqdisho ayaa qaybiyay lacag zaka uu ku tilmaamay maamulka al-shabaab ugu magacaaban gobolka Banaadir ayaa soo gabagabay mashruuc loogu yeeray qaybinta sakada oo la sheegay in 100 qof ay ka faa'iideysteen al-shabaab ayaa sheegtay in gudoomiyahooda u qaabilsan gobolka Banaadir Muuse Cabdi Caraale uu lacag lagu sheegay zaka u qaybiyo 150 qoys oo kamid ah dadka masaakiinta ee ku dhaqan Muqdisho qoys walba oo kamid ah qoysaskaas 150ka waxay nasiib u heleen lacag gaaraysa $500 taasoo aqoontada kaga soo aaday sakadii ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay kooxda magaca Muuse Cabdi Caraale ayaa ah magac ku cusub warbaahinta oo aanay hore la aqoon tan markii la dilay gudoomiyihii hore al-shabaab u qaabilsanaa Muqdisho Cali Jabal ma jirto cid xaqiijin karta goobta lacagtan lagu qaybiyay inay tahay gudaha Muqdisho ama deegaanada ku hareeraysan oo shabaabka ay qaarkood ku sugan yihiin iyadoo ay taasi jirtana kaba ku tukada oo kamid ah hogaamiyaasha ugu sarsareeya al-shabaab ayaa sheegay in cunuga uu dhalay uu ka dagaalamo Kenya gudoomiyaha dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe Yuusuf Ciise kaba ku tukaday oo odayaal kula hadlaya xarar dheer ayaa ka warbixiyay halkuu marayo dagaalka al-shabaab khudbadu u jeediyay odayaasha kamid ah ergada soo xulay baarlamaanka Soomaaliya ee xafiiska ugu tagay al-shabaab ayuu ugu warbixiyay taariikhda dagaalka al-shabaab ee Soomaaliya waxa uu sheegay in ciidamada al-shabaab ay ku filan yihiin ciidan kasta oo la keeno dalka isagoo sheegay in caruurta ay dhalaan kaliya ay ku filan yihiin Yuusuf ayaa yiri anigoo shabaab ah cunuga nale ayaa ka dagaalamay Kenya uma baahnin ciidan caruurtan dhalana ayaa nagu filan ninkiiba 10 cunug ayuu dhalay afar xaas ayaan leenahay galab iyo subax ayay dhalayaan sida dooradii ayuu yiri ninkan dhinaca kale kaba ku tukada ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay yihiin gobonimo u dirir isagoo dood badan geliyay aragtida ayaga ka dhan ah ee wahabiyada ku sifaysan waxaana uu sheegay in qof kasta oo islaam ah laga bixiyo tilmaam qaldan
ugu dambeyntiina maxamed bin salmaan walaashiis ayaa xabsi lagu xukumay. amiirad sacuudiyada ayaa lagu xukumay 10 bilood oo xarig dibad joog ah waxaana lagu helay inay afduubatay oo ay garaacday nin ay ka shaqeynayay guri kuwa raaxada oo Paris ay ka degneed. xasan bintu salmaan waa 43 sano jir waxaana dhalay boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis. waxaa lagu eedeeyay inay amar ku siisay boodhikaadkeeda inuu garaaco ninka ka shaqeeya cilad saaridda qasabadaha oo sida la sheegay sawiro kaga qaaday gurigeeda dhexdiisa. Ashraf Ciid oo ah ninka dacweeya ayaa sheegay in ninka boodhikaarka uu ahaa uu ku qasbay inuu amiirada cagaha ka dhunkado. maxkamadda Faransiis ah ayaa amiirada waxay ku heshay dambi ah inay gacan ka geysatay jirdil iyadoo adeegsanaysa hub iyo sidoo kale afduub qof qayb ay ku lahayd. amiirada oo horey waran qabasho caalami ah loogu jaray ayaa xukunka lagu riday iyadoo maqan waxaana sidoo kale lagu ganaaxay 10,000 euro. ha yeeshee iyadoo horeba waxay u beenisay eedaha loo haystay. ninkii boodhikaarka ahaa oo la yiraahdo Rani Saciidi ayaa isagana lagu xukumay 8 bilood oo xabsi dibad joog ah iyo 5,000 euro ganaax ah. bishii September 2016 ayaa Ashraf Ciid waxaa loogu yeeray aqal ku yaala dabaqa shanaad kuwa qaaliga oo ku taala Avion Foch ee magaalada madaxda Faransiiska si uu u hagaajiyo qasabad jabtay. ninka shaqaalaha ah ee u dhashay Masar ayaa sheegay inuu sawiro uu ka qaaday qolka meerashada oo loogu yeeray inuu qasbada u hagaajiyo laakiin amiirada waxaa sida la sheegay ka carootay markii aragtay in meesha uu sawirayay miraayad ku taal muuqeeda uu ka soo baxay. hase yeeshee xaashida dacwadda waxaa ku caddeed in markiiba uu u yeedhay Saciidi oo amar ay ku siisay inuu garaaco isla markaana qol uu ku xiro. mar ayaa amiirada la sheegay inay ku qaylisay eyga dil nololba ma istaahile. guud ahaan daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen xulashada wararka aad ku mahadsantihiin si wararkeena aad ula socotaan nabadgelyo.